ogyahay kow waa yeelaan ahay laba hooyadiis iyo aabihiis way dhinteen waa agoon lacagna ma haysto xitaa haddaan meesha aadi lahaa marka halkaana ilaahay waxaan weydiistay in dawada wiilka ilaahay subxaanahu watacaala uuna siiyo dacaan halkaas waa marka waa ka aqbalayaa ducadooda hadday ugu weydiistaan qalbi oo saliim ah qalbi nadiif ka ah wax walbo haddaa ilaahay ku weydiisato ilaahay wuu kuu sahlaya qisaan soo qaadanaa marka qisadan marka labo nooc oo cibaadaha isla socoto waay kow khilwada qofka inuu gooni la ahaado ilaahay subxaanahu watacaala oo cidna aanan ogeyn waxay ka mid tahay cibaadooyinka ugu waaweyn culummada qaar waxay dhahaan qofka mu'minka waxaa fiican khilwo inuu sameeyo khilwana markaa samaynaysid waxaa waaye ilaahay aad xusaysaa iyadoon cidna kula joogin oo keliga aad tahay marka laba qofka qabanaya markaasi markuu khilwada yahay oo keligiis uu yahay digri badan uu akhrinayaa oo ilaahay uu ku ammaanayo noocoo doona digrigaas ha ahaado wixii adkaar ah ma'huuraad ah nabiga laga soo guriyey iyo gacanta kula taagaya ilaahay uu weydiisanaya wuxuu rabo qisadan waxay ku saabsan tahay iyadoo kooban ayeeyo haysay wiil yaroo agoon ah oo xanuun khatar ah ku dhacay marka maamadaas waa u imaan doonaa laakiin waa qiso cajiib badan oo ah awoodda ducada dadka badanaa way yaraystaan qofka markuu xanuunsado dhakhtarkuu ku degdegayaa laakiin haddaa xanuunsata ka waran inaad ku degdegto ilaahay subxaanahu watacaala oo og xanuunkaaga oo og in lagugu imtixaanay oo kaa qaadi karo daqiiqad wax ka yar meesha dhakhaatiirta laga yaaba inay ku qaataan sanawaad calaa kulli xaal nin dhakhtar doctor ayshaan la dhahayo oo asal ahaan waddanka bakistan ka soo jeedo wuxuu safar u aaday martiqaad uu helay oo lagu siinaya hadiyad dawo uu soo saaray cudurada ka mid ah marka wuxuu hore usoo qaatay qalabkiisii iyo dawadiisii oo boorso uu ku wataa diyaaraduu soo koray diyaaraddii intay iyadoo marayso degmo ka mida degmooyinkii waxaa dhacday diyaaraddii hal injinaa ka halaabay waxay qasab noqotay bilotka u sheegay inuu dejinayo si khatar weyn imaan kartuu kaga hortago diyaaraddii markuu dejiyey degmadaasuu ku dejiyey oo meel airboor ahaa isla markii diyaaraddu ka soo baxay isagoo walwalsan sababtoo ah saacado ayaa ka harsan manaa berito waxaa hadiyaduu qaadan lahaa markaasna waxay ahayd habeen ku dhawaaday ahayd marka qoladii oo meesha airboortka wuxuu weydiistay diyaarad geen karto meeshuu u socday qoftii oo airboortka qaybtaas u qaabilsanada waxay ku tiri diyaarad ma u baahnid meesha u socoto waxay kaa xigtaa intaasoo saacadood marka haddaad gaari kiraysato waa aadi kartaa wuxuu ku dhaha waa mahadsan tahay gaariyuu kiraystay markaas kadib gaarigii intuu saarnaa oo uu wadayay waxaa soo da-ay roob xoog badan adduunka ilaaha maamulo diyaaraddaasi injinkeeda ilaahaa sababay inay meeshaasi ku istaagto oo lasoo dejiyo haddana hadalladan uu dhex marayo dhan xukunka ilaahaa socdo iyo maamulka ilaahay yudabbiru lamr wax walbo gacantiisa ku jiraan qofka muminka duu intaas rumaya qalbigiisa waa degaya bini aadan taladaada ma hayo taladaada gacanta ilaahay ku jirtaa isla markii roob xoog badanaa soo da-ay habeenaa la galay wuu ku wareeray khariiduu haystay uu raacayay meeshuu u socday laakiin wuu dhumay markuu u dhumay soo u socday marka wuxuu arkay guri keligiisa meel ku yaallo oo guryaha ka baxsan oo guri yar ah cariish yar oo wax faynuus u eg ka daaran guriguu yimid marka wuu dhumay muxuu rabaa in uu helo dad haga meeshii markuu soo galay guriguu soo galay albaabkii uu garaacay hooyo waayeelaa waxay dhahday waa soo geli kartaa albaabkii waa furan yahay albaabkii kuu soo galay waxaan arkay hooyo waayeel iyo waxaan arkay sariir ag taalo hooyada waaweel markaasi waa tusbiixsanaysay digriga akhrinaysay saasuu dhahay marka waxay leedahay soo dhawow martiyaad u eg tahay markaasuu dhahay maku weydiin karaa wax
markaasaa wuxuu yidhi haa. Waxay tihi haa. telefoon ma haysataa? markaasaa waxay tihi gurigan guri telefoon leh ama koronto leh ma kula egyahay? markaasaa wuxuu yidhi mashaakil. markaas tiri isdeji, fariiso, shaaha yaalo, shaah cab, naso, roob badana waa da-ayaa, raashiinna waa yaallaa. markaasaa wuxuu yidhi shaahii iyo raashiinkii ii keentay, kursiga isaga noqotay, wardiyay sii waday. wardiyay akhrinaysaa iyo duco. waa istaagaysaa, waa tukanaysaa, gacantii kor u taagaysaa. markaasaa markii oo ay dhammaysatay waxaan dhahay waxa ku agjiifo maxay yihiin? waxay dhahday ilmo yar waaye, xanuunkaasaa ku dhacay, wax daweeyo xanuunkaasi ma jiraan. waxaa la ii sheegay dhakhtar la yidhaahdo doctor Aishaan in xanuunkan dawadiisa uu helay, laakiin wuu iga fog yahay. kow, waa yeelaan ahay. laba, hooyadiis iyo aabihiisa way dhinteen, waa agoon, lacagna ma haysto xitaa haddaan meesha aadi lahaa. marka halkaana ilaahay waxaan weydiistay in dawada wiilka ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyo. wuu ooyey. marka waxay dhahday maxaa u ooynaysaa? waxay dhahday wuxuu dhahay cudurka aad sheegtay aniga waaye dhakhtarka dawadiisa helay, doctor Aishaan aniga waaye, diyaarad ducadaada iyo dikrigaaga ay khilwada aa gashay diyaaradu ilaahay u soo leexiyey. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray inaan soo qaato gaari. ilaahay wuxuu amray roob iyo gogac iyo mugdi xoog badan oo aan ku dhamay. ilaahay wuxuu amray inaan gurigan aan ku soo leexdo. ducadaada awoodeeda raba inaan kuu sheego. intaas kaliya maaha, boorso waxaan wataa oo tusaalooyin daawooyinkaan ku soo qaaday. markaas kadib dhakhtarkii wuu orday, baabuurkuu aaday, boorsiisuu soo qaatay, wiilkii meeshuu ku daweeyey. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.